askariga corruption-ka ku soo daayinaya baabuurka qaraxa ama waxa qaraxa laga sameeyo dadka adaad dilo haysto ogaw adaad dishay kan isqarxiyay ee balaayo qabaha ama dadka ma dilin dadka adaad dishay maxaad ku dishay inaad soo daysaad ku dishay inaad ilaali weydaad ku dishay meel kasta joog mas'uuliyad kasta hay aad iyo aad waxaa la yiri fulay xantiis ma booga waa huba inaad xantiina iyo xanta ciidamada kulli la og yahay baabuurta ciidamada lagu soo geliyaa saraakiila checkpoint-yada ka soo fasaxa oo askarta amar siiya waxa xanteena ma moogin waana la xantaa meel cidlaana la iska ma xanta ogaada xanta waa laga yaabaa hal xan haday jirto in 3 4 5 laga dhigo oo xoogaa lagu sii dardaro waa macquul laakiin meel cidlaa inta badan meel cidlaa kama dhisanto wareedhahay khayr allah idin guuleysta waana guuleysateen insha Allah wiil cadawga ummadda Soomaaliyeed ee arxan la'aanta ah ee aan qof iyo laba dilaynin ee boqolaal u dilaya dadka waxoogaa yaroo lacag ah laguma doorsata saraakiila jirto hadda ciidamada qalabka sidoo dhan qaybahooda kala duwan qaar kamid ah ka tirsan oo hadda wali baaristooda ay socoto oo aan hay'adaha ajnabi xataa la kaashanay la leeyahay asaa ka soo daay checkpoint-ga la leeyahay maalinta qaraxba dhacay saacada ka hor ayuu meel hebel lacag ka qaatay la leeyahay waa lagu daba joogaa maalin maalmaha kamidana waa la soo qabana saxaaro qoro dheer la isaga tiraha la yiri ceebta ka fogaa ninka darajo leh askari waa askari waana asal sidii kama marre ninka darajo leh sarkaal booliska sarkaal nabad sugida sarkaal military ah ama sarkaal asluub ah ee ay ku cadaato baabuurkii meel hebel ku qarxay 100 qof dilay asaa checkpoint ka soo daayay ama baabuurkiisa lagu soo gudbiyay oo hor socday ay ku soo cadaato waa maxay aakhira beel iyo adduunyo beelka u dhiman ilaahay idinkiis waa iimaanaysa hadaan jirin oo been tahay la waxay ma ba iimaan doontaba illa wixii fakt xaqaa'iq in la helaal raba hadaan xaqaa'iq loo helin qofka dambiilo waayba lama dhigi karo hal iska tuutuuma hadii la doonay laakiin xantuna waa ugu badan tahay tuumadu waa ugu badan tahay baaristaasna waa socotaa war hooy halas ilaaliyo adduunyadana halas ilaaliyo sharaf iyo karaamo iyo izzi aan ku baahanahay inaan ku noolaado aakhiradeenana aan ilaashano meel aan ka soo noqon karno ma tagin hadhow intaas labadaas arrimood oo dardaaranka ah oo inay ka foojignaadaan